wafdi ka socda dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta booqasho ku tagay dekedda magaalo xeebeedka Hobyo halkaas oo ay ku soo xiratay dooni ganacsi muddo bil gudaheeda taas oo sida gaadiidkii ugu tirada badnaa ee laga soo dejiyay dekedda magaalo xeebeedka Hobyo waxayna kormeer indhaindhayna ku sameeyeen dhismaha dekedda kalluumaysiga Hobyo iyo qaabka hawlaha shaqo ay uga socdaan wafdigan waxaa horkacay wasiirka dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka Galmudug oo ay wehelinayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mas'uuliyiin kale iyo maamulka degmada Hobyo maareeyaha dekedda Hobyo Cabdirasaaq Maxamed Ducaale iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale ayaa ku soo dhaweeyay wafdigan ka socday Galmudug degmada Hobyo iyagoo warbixin ka siiyay hawlaha shaqo ee ka socda degmada Hobyo waa u jeedaan dekedda degmada Hobyo doon ganacsi oo ka timid Dubai ayaa hadda shaqadeeda dhawaan la bilaabaya in la dejiyo waxaa kaloo horay dekedda uga socday kabani dhismaha jadka kalluumaysiga dooyuhu ku soo xirtaan shaqo ka haya waxaan baaq u direynaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada reer Galmudug inay dekeddu u furan tahay cid walba oo wax kala degi karta amniguna uu boqolkiiba boqol yahay waxaan si gaar ah ugu sheegaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay dekeddan adeegii ka dhimanaa loo dhammaystiray ay ka mid yihiin adeegaas oo ahaa midka gaadiidka dejin kara dekedda waa loo soo dhammaystiray waxaana hadda doontaan ay wadaa gawaari gaaraysa ilaa 87 gaari dekedda awal badeecada kala duwan ayaa ka degi jiray laakiin hadda waxaa lagu soo siyaadiyey in gaadiidku ka dego oo nooc walba leh cid kasta oo ganacsi ah waxaan u sheegaynaa inay u furan tahay dekeddan inay wax kala degaan shaqada si fiican u socotaa wafdiga noo yimidna hadda shaqooyin u yimaadeen hadda wasaaradda gaadiidka tahay inay bilowdo shaqadii ayada ee lahayd maadaama gaadiid uu saaran yahay dekeddii ay baabuurtaasi ay sida caadada u ahayd oo taarikada iyo buwaagta iyo wixii serviceka loogu talagalay gaadiidka inay samayso ayay u timid wasaaradda maaliyadda maadaama canshuur dhaaf ay noo samaysay dhaqdhaqaaqa ka socdo iyo system ka socdo inay soo kormeertay waxa ay Hobyo ku sugan tahay ayay noogu timid labadaba insha Allah taala sidii wax u rabaan ayaan ula wadnaa anagana ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay cid kasta iyo wasaarad kasta oo reer Galmudug ah Hobyo ay maata ama wax ka qabanaysa inaan gacmo furan ku soo dhaweyno marka muhiimaddu waxaan siinaynaa oo aan aad target ku siinaynaa maanta inay shaqadu Hobyo si fiican u socoto waxa yar oo doonta noo taagan oo ganacsiga mirad labadan barnaamijka kiyana waa dabeel wax kale inaysan jirin dabaashisan ilaaha keena ugumaana tala gelin 15 February bad inay degtay ahayd maantana waa u jeedaan oo waxa ku jirta mowjada ku jirto waana ka bixi doontaa insha Allah birina waxaan rabnaa haduu ilaahay nafta baaray aan u qabto shirkadda baraarug inaan u fasaxno shaqadii sida ku qabalayd ay ku soo dejiyay doomaha maantana waa isku daydo u jeedaan qalabkeedu waa u diyaarsan yahay inay gasho oo intaas kaliya ayaa maaragtay hakadka galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Galmudug Muqtaar Cali Cismaan iyo wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow ayaa sheegay in dowlad goboleedka Galmudug ay ganacsatada u sameynayso canshuur dhaaf wax kala soo dega dekedda Hobyo si ay dhiirigelin ugu sameyso maalgashiga deegaanka in wasaaradda maaliyaddu ay dhiirigelin u sameysay si ay ganacsatada kale ugu soo hirtaan laga soo bilaabo madaxweynaha wasiirka maaliyadda runtii cashuur dhaafkaas aan shilin laga qaadayn waxaan ka ahayn shatiyada baabuurta cashuurtooda mooyaane ujeedkiisu wuxuu yahay in kuwa kalena ay ku soo dhiiradaan oo Hobyo suuq yeelato oo muxuu haayay ay hore u socono marka ganacsatada waxaan leenahay ka wasaaradda maaliyadda ahaan waan garab taaganahay waxay noo tahay maalin weyn maalin sharaf badan maalin aan dib u hananayno sumcadeennii iyo sharafteenii iyo maaragtay sheeg dadaalladeennii aan waqtiga dheer soo wadnay runtii dhowr munaasabadood ay maanta isdul saaran tahay munaasabadda koowaad waxay tahay in gaadiidkii ugu ballaarnaa ama badeecadii ugu ballaarneed laga dejinayo dekedda Hobyo ee dhowaanahan munaasabadda labaadna waxay tahay inaan markii ugu horreysay dekedda Hobyo gaadiid ka soo dega lagu xirayo sumadii Galmudug oo ugu horeyso taargadii tirintaalihii buugii lahaanshaha gaariga runtii waa sharaf ah dawladdu inay garatay sida wasiirku sheegaba in loo sameeyay cashuur dhaaf
taargadii iyo dukumentigiina sidaas oo kale loogu sameeyey dhimis canshuur dhimis lagu sameeyey maantana ay dhowrkaa farxood isu keena saaran tahay waxaan leenahay cid kasta ee arrintaas hirgelisay ama ka shaqaysay ama gacan ka geysatay waa ku mahadsan yihiin mana noqon doonto markii ugu dambeysay waxay noqon doontaa bilow barakale ka dawlad ahaan si buuxda oo dhammaystiran oo dareen leh oo naxariis leh ayaa loogu soo jeedaa in dekedda Hobyo ay noqoto deked runtii u furan cid kasta ee Soomaali ah deked servicekeedii hesha sida hadda u socotaan dhinaceenna waxaa ka socda dhismo oo dekedii la dhisayaa dhinacan waxaa laga dejinayaa badeeco dhinacan waxaa gadaashay taagan shactarro la rabo in gaadiidka lagu dejiyo doomaha waxay taagan yihiin gaadiid wada badda waxaan dhihi karaa marka waa nimco isku aaday ilaahay isla soo doontay dadaalna lagu bixiyey waxaan uga mahad celinaynaa marka cid kasta ee dadaalka soo bixisay hadday tahay ganacsato hadday tahay maamul iyo hadday tahay dawladba cid kasta oo gacan ka geysata waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo baaq ku aadan ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka halkan ka soo jeeda runtii maanta waa nasiib inaad hesho in gaadiidkaagii ama badeecadaadii lacag la'aan kugu degto ayadoon cid wax kaa qaadaysa aysan jirin intaad maaragtay meelo kale oo qarash ku fuulaayo badeecada dadka lagu zaa'idin lahaa ka soo dega halkan ammaankiina waa sugan yahay waxa weeyaan canshuur dhimis waa laydiin sameeyey dawladdii si dareen lahay ay idinkugu soo jeedaa Hobyo maanta farxaday u tahay Saadaq Siciid Nuur CBA TV Hobyo